sidii caadiga ahayd maanta golaha wasiirada dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay isugu yimaadeen shirkoodii caadiga ah khamiislaha ahaa oo ay hor yaaleen ajadayaal badan oo looga hadlay xaaladda dalka ee dhinacyada amniga, dhaqaalaha, arrimaha bulshada iyo siyaasadda. qodobaha golaha wasiiradu ajadayaasha badan ee ay kaga hadleen xaaladda dalka ka sokow maanta waxay isbedel ku sameeyeen taliyayaasha ciidamada qalabka sida. ugu horeyn golaha wasiiradu waxay amaaneen taliyayaasha iyo ciidamada qalabka sida ee kala duwan howlaha wanaagsan ee sugidda amniga iyo xoreynta goobaha argagixisadu ay ku dhibto dadka Soomaaliyeed. howlaha ay ciidamadu ka hayaan ayay si fiican u amaaneen, waxayna wax ka bedel ku sameeyeen si howlaha loo dardargeliyo taliyayaasha ciidamada qalabka sida. ugu horeyn waxaa xilkii uu hayay laga wareejiyay General Aadan Cilmi Indha Qarsho, taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, waxaana xilkaas loo magacaabay Sareeyo Guuto Odawaa Yuusuf Raage oo hore u ahaa taliyaha ciidanka lugta xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa hadda laga dhigay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. sidoo kale waxaa xilkii uu hayay laga wareejiyay ama laga qaaday General Bashiir Cabdi Maxamed, taliyaha booliska Soomaaliyeed, waxaana xilkaa loo magacaabay General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa loo magacaabay taliyaha cusub ee ciidanka booliska Soomaaliyeed. sidaas lamida waxaa xilkii uu hayay laga qaaday ama laga wareejiyay General Sareeyo Guud Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe, waxaana oo ahaa taliyihii hore ee ciidanka asluubta Soomaaliyeed, waxaana xilkaas loo magacaabay General Mahad Cabdiraxmaan Aadan oo hadda wixii ka dambeeya noqonaya taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed. sidaas lamida waxaa taliyaha ciidanka NISA ama ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliyeed loo magacaabay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo hore u ahaa taliya ku-xigeenka ciidankaas ayaa hadda waxaa laga dhigay taliyaha ciidanka NISA. golaha wasiiradu intaa ka sokow waxay kale oo buuxiyeen xubin ka banaanayd guddiga doorashooyinka qaranka oo ay ku buuxiyeen Aadan Cabdinaasir Maxamed. waxay kale oo ansixiyeen sharci ay hor keentay wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka oo ah sharciga marista wadooyinka iyo ajadayaal kale oo fara badan.